saacadii la soo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay gabadha lagu magacaabo Najma ama Mrs World oo baraha bulshada isticmaasha caan ka ah ayaa la sheegay in laga faafiyay muuqaal anshaxumaha laakiin Mrs World ayaa ugu dambeyntii arintaasi ka hadashay waxaanu muuqaalka ku eegi doonaa maxay ka tiri arintaasi maxaana ka jira sidoo kale fanaaniinta ugu caansan iyo waliba dadka social media isticmaala ayaa arintan ka falceliyay hadba Najma ama Mrs World waxay ku sugan tahay wadanka Mareykanka waxayna ka mid tahay gabdhaha aadka loo jecel yahay markii la eego baraha bulshada oo waxay ka mid tahay gabdhaha ugu quruxda badan muuqaalkan sidoo kale waxaanu ku eegi doonaa macquul ma tahay in gabadhan laga faafiyo muuqaal marka anshaxumaha muuqaalkan aynu ku eegi doonaa inta aan guda galin marka hore muuqaalkan waxaan idinka codsanayaa in muuqaalka marka hore shargareysaan kuna soo biirtaan boggeena saaxiibada waxaa tihiin dad aad iyo aad wanaagsan saacadii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday sawiro muujinaya in muuqaal fool xumo ah ama muuqaal anshaxumaha laga faafiyay gabadha lagu magacaabo Najma Khaliif ama gabadha inta badan magaceeda la yiraahdo Mrs World oo ku sugan wadanka Mareykanka Mrs World waxay ka mid tahay gabdhaha caanka ka ah baraha bulshada gaar ahaan kuwa isticmaala aalada TikTok inta badan dadka baraha bulshada isticmaala waxay aad u hadalhayeen muuqaalada laakiin arintaasi iyada ayaa ka hadashay waxayna shaaca ka qaaday in arintaasi ay tahay been abuur la doonayo in sumcadda iyo sharafta Mrs World dhulka la dhigo ama hoos loo dhigo Mrs World inta badan waxay isticmaashaa TikTok sidoo kale barteeda Snapchat-ka ayay waxay ku soo qortay qoraal oo ay ku leedahay haddaad nooshahay ceebtaada waa la raadinayaa haddaad dhimatana waxaa leeyahay qofkaasi ama qoftaasi wallaahi qof wanaagsan ayay ahayd aniga mar hore ayaan ka taxadaray ilaahayna waxaan ka bariyaa in sharafteeda uu ii dhooro ayay tiri oo hadalkaasi ayay Snapchat-ka soo gelisay haddaba dadka inta badan Facebook isticmaala waxa ay inta badan hadalhayeen in muuqaal laga faafiyay laakiin arintan ayaa ku sheegtay in ay tahay mid markaasi been abuura waxaana shaaca ka qaaday inay kalsooni isku qabto waxay tiri waxaan ahay qof kalsooni isku qaba macquulna maaha in arintan ay run noqoto ay barteeda Snapchat-ka soo gelisay qoraal ahaan sidoo kale Mrs World markaynu eegno dabcan waxay ka mid tahay gabdhaha aadka loo jecel yahay baraha bulshada isticmaasha dad badan waxa weeyaan waxay dhahayeen muuqaalkaasi waa run oo waa laga hayaa laakiin waxay shaaca ka qaaday in arintaasi ay tahay mid been abuura aysan macquul ahayn in markaa muuqaal fool xumaha ama muuqaal markaasi anshaxuma laga hayo gabadha lagu magacaabo Mrs World haddaba daawadaad ahaantaada maxay kula tahay Mrs World waxayna shaaca ka qaaday in sharafteedii ay ilaashatay mar hore haddana ay doonayso inuu ilaahay sharafteeda uu ilaaliyo